بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ليال الله سبحانه وتعالى أيام أتسن إلهي بانكم هذلنا نعمة الإيمان والإسلام إلهي سبحانه وتعالى أسق أيام أتسن وأدون كان كيني وأدوميس بانهني بإذن الله تعالى أيها المؤمنون أنكو بشهر رمضان كجرنا بشهر بركي سنات بشهر خير كبنات بشهر دم بالأف كجرنا أيان بإذن الله تعالى أيان ما تسوق هذينا وحيابها صون كجبية وحيابها صون كأنجبنين أيان بإذن الله تعالى أيان كهذينا وحيابها صون كجبية ولا مرمان إن يدك مسلمين تأي برتان waxyaabaha soonka aan jibinaynin ayadana waa laga maarmaan inay bartaan ummadda ay ogaadaan waa laga maarmaan qofka asagoo sooman ayaa waxaa laga yaabaa waxyaabaha soonka aan jibinaynin inuu ku dhaca laakiin inuu soonkiisa jabin as u malaya laga yaabaa marka maanta anagoo waqti gaaban qaadan doona biidnillaahi tacaala ayaan waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxyaabaha soonka jibiya ayaan ku bilaabaynaa waxaana u dambaysiinaynaa waxyaabaha soonka aan jibinaynin anakoo marka macnaha soo koobayna oo macnaha soo khulaasayni doono hadaa la fasira oo la fafaahiyo waqtigan uu yaraani doono fafaahinteeda iyo macnaha waqti dheer bay qaadanaysaa laakiin sida ay dadku u fahmaan waqtigan hadda soonka lagu jiro ayaan soo koobay ayyuhal muslimuun walaalayaal Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay quraanka wuxuu ku leeyahay ayyuhal ladina aamanu kutiba alaykumus siyam dadka muuminiinta oo ilaahay rumeeyo oo iimaanka lagu waajibiyay oo iimaanka lahow إلهي سبحانه وتعالى وحذكر كنا أسكو واجب يلي إن صونا صون كما أنا كلي حاسومينا كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سيدة أمضي هراء لوجو واجب يلي أيا إذا كان اللي ينكو واجب يلي إن تصونتان صوت النور واجب يلي محوايا لعلكم تتقون إلهي إن لقبقة وابي مهمة وليال صون كان نقبل عبادة إله نقبل سبحانه وتعالى قيام الليل إيو معناها صون كإيو معناها استاج إيو عبادينك إله نقبل أحاديث ربنا صار رتي وقت نفاس وما هينا وهذلنا قفك كل صوم أو من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مركنا لها قفك صوم أسقو إيمان إيو الله كعبس إيو تقوى إيو إخلاص معناها أي كسر يسنتهي صوم oo habeenkina istaaga dambigiis waa la dhaafayaa marka waxyaabaha kale kulli waqti kale aan ka hadli doona hadda waxaan bilaaweynaa waxyaabaha soonka jibiya iyo waxyaabaha soonka aan jibinaynin waxyaabaha soonka jibiya ayaan ku hormaraynaa ayyuhal ikhwa waana koobayno soo khulaasayni doona waxyaabaha soonka jibiya waxa ugu weyn aridda qofka asagoo muslim ahay oo shahaadada qiraay oo nasoonaay ayuu macnaha islaamnimada ka baxay islaamnimadaas ka baxay gaalnimaas galay qofka asagay soonkiisa waa burayaa laakiin hadaa gaalnimada lagu qasba oo gaalnimada xoog loogu qasba oo xoog loogu keensiya oo asagay awoodiisa ahaana soonka kama burayo dabcan soonka kama burayo walaalayaal marka waxyaabaha soonka burinayo waxa noo galay aridda qofka inuu gaalooba oo gaalnimo asku dhaca oo diinta islaamka aska baxa soonkiisa waa burayaa hadaad soo laabta oo ilaahay subhanahu wa ta'ala dambiga asgal ugu soo tawba keeno ugu soo laabta soonkaas maalinkaas waa laga rabaa laakiin islaamnimada soo soo galay noqonaysa walaalayaal numberka labaad oo waxyaabaha soonka jibi waxa kamid ah cunitaanka iyo cabitaanka midda caadiga loo caba iyo midda dadban cunitaanka caadiga loo cabaya waa la yaqaanaa waxa weeye waa biyaha la cabaya iyo cuntada la cunaya qofka haduu hadduu u yeelo cunto cuno biyina caba soonkiisa waa jabayaa maxaa yeelay haddaas kas u yeesha oo hilmaanna ay ka ahayn oona aan lagugu qasbin oo kas u yeeshay biyina cabtay cuntona cuntay soonkaada waa jabayaa la soco ogow laakiin waxaa iyada la jira soonka aan jibinayno marka la jira haddaan qofka asagoo hilmaansan cunto cuno biyo caba dharga caloosha buuxiya wax yar ka bacdina soo xasuusta qofkaas soonkiisa ma jabaya soonkii waa u jiraa ayarko tartiib waa sii wadanaya nabi sallallahu alayhi wasallam xadiiskiisa baa noo cadaynaya man akala aw shariba qofkii cuno ama caba asagoo sooman ama oo sooman oo hilmaamay
soonkiisa asii wata ilaahay baa ku waraabi ilaahay baa cuntada ku sii man nasiya wa huwa saa'im qofkii hilmaama asagoo sooman fa akala aw shariba oona cunto cuno ama wax cabba falyutimma sawmahu soonkiisa dhammaystirta asii wata fa inamaa adcamahu allahu wasaqaahu ilaahay baa cuntada ku sii biyahanu ku waraabi marka laakiin cuntada iyo cabitaanka kas loo yeelo soonka waa ku buraa ala iska jira dadka muslimiinta iska ilaaliyeena mid kale oo iyadana soonka ku buraay waxa waaye oo cunitaanka iyo cabitaanka la jirta faleembooyinka lagu suraayo oo nafaqada jirkaada siinaya ayadana soonka way burinayeen ala iska ilaaliyo iyo ikhwa waxaabaha kale oo soonka jibiyo numberka 3 waxa waaye walaalayaal qofka inuu matag xoog iska keena qofka inuu mataga xoog iska keena farta afka macnaha afka gacanta farta geliya oo matag iska keena ama wax oo soo shiira oo shiiriya oo laban ay qabato oo kas iska keena soonkiisu waa burasha kuma jiro laakiin qofka haduu mataga soo dhaafa oo asagoo tabartiisa ahayn uu soo dhaafa xanuun uu qabta mataga ka imaada qofka asayta soonkana kama jabaaya qalana laguma lahaanayo qala laguma lahaanayo maxaa yeelay awoodiisa ka baxsan tahay oo kas uma yeelin soonkii asagoo sooman ayuu mataga soo dhaafay dhimanaha laakiin hadaa kas loo yeela soonka waa jabaya aan la iska ilaaliyo muslimiinta iska ilaalina lambarka 4 oo soonka jibiya waxa kamid walaalayaal toobitaanka qofka la toobo dusha laga tooba toobitaanka qofka la toobaya ayadana soonka ma jibinaysa iskuulay u tagi doona laakiin numberka 4 waxyaabaha soonka jibiya waxa kamid qofka inuu macnaha asagoo sooman maalin la joogo xaaskiisa u galmoodo jamaac la suubiya xiriirka guusha la suubiya la baashaala oo macnaha biin ay ka imaadaan oo sidaas ay macnaha ku suubiyay asagana soonkiisa waajibaya bal iska dhaafi kafaara ayaa korkiisa ku waajib noqonaysa laakiin qofka asagoo hilmaansan oo war ka haynin oo inuu sooman isu haysan haduu xaaskiisa u galmoodo la shaka soonkiisa ma jabaya qofka asaga ay kulay waa sida nusuusta ku cad ayu ikhwa marka walaalayaal qofka asagoo sooman haduu zino ku dhacay iyadana ka sii daran tahay marka dadka muslimiinta waxaan ugu baaqayaa kuwa waliba isqaba oo xaaska iyo macnaha ninka oo isqaba oo xalaasha isu waqtiyalka soonka la sooman yahay oo maalin la joogo ala kala fogaada habeenkii waa fasax baa la isu yahay ragow dumarkiina beer ay idin yihiin sida beerta kala waaya saarabtiin macnaha ugu taga laakiin maalinka soonka la sooman yahay iska ilaaliya qofka waxa laga yaabaa inuu isweydiiyo dhalinyarta anigoo sooman sheeqo xaaskay ma shumani karaa anigoo sooman xaaskayda ma shumani karaa ha waa shumani kartaa laakiin hadaas is ilaalinayso waa shardi baa ku jiro hadaas is xakameyn karta adigoo sooman xaaskaada waa taaban kartaa waana shumani kartaa jirkeeda maartu waa ka taaban kartaa laakiin adigoo sooman inaad is celiso hadaas is celin karin oo hadaas taabataba asii taraaraxaysa balankaada kamar oo soonkaada waajibaadkaas ka nusqamin iska wada waa walaalayaal marka walaalayaal inta waxaan ugu bixinaa waxyaabaha soonka jibiya waxyaabaha ugu weyn kuwaas waaya marka inaan iska ilaalino laga marmaan iyo ikhwa oo ku dadaalna soonka inuu naga jabin waxyaabaha soonka aan jibinaynin hadan boobsiyo aan soo kooba ayadana waxa kamid qofka inuu istooba toobitaanka qofka la toobayo ayadana soonka ma jibisa waxa kale oo ayadana soonka aan jibinaynin qofka inuu qabaysan karo markuu kululaado waqti walba 12 hata 7 saac hata qofka soonka ma jabaayo waxa kale oo soonka aan jibinaynin qofka inuu cadeysan karo waqti walba oo hata hada ilkaada dhiig ka imaadaan soonka oo ka jabaynin nabi sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa muxuu ahay law anna ashqa ala ummati la amartahum bisiwak ummadayda inaan dhib hadan ka baqaynin waxaan ku waajib yeeli lahay inay markasta cadeystaan marka walaalayaal waxa la rabaa marka qofka muslimku waa cadeysan karaa cadiga soonka ma jibiya qofka haduu biyaha sanka iskaga shubana haday biyaha sanka ay ku dhaafayeen hoos ay ku siyaadaynin oo gudaha ay galaynin ayadana soonka ma jibinaysa waxa kale oo ayadana soonka aan jibinaynin qofka inuu indho marsada ayadana soonka ma jibinaysa waxa kale oo soonka aan jibinaynin walaalayaal qofka habeenkii inuu saxani karo asagoo janaabo qaba qofka inuu macnaha saxani karo habeenkii asagoo janaabo qaba waagan ugu banaan karo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayadana soonka ma jibinaysa marka walaalayaal waxa kale oo soonka aan jibinaynin qofka inuu cunto cuno biina caba asagoon hilmaansan oo macnaha oo hilmaansanay oo war aan ka haynin waxa kale oo soonka aan jibinaynin walaalayaal qofka inuu macnaha gaalnimada lagu qasba oo xoog gaalnimada lagu geliyo
ayadana soonkiisa kama jabaysa walaalayaal marka waxaa kaloo soonkaan jibinaynin qofka asagoo hurdaaya oo hurdo ku jiro oo la jooga maalin la yahay oo soonkana maalin yahay hadduu intuu riyoodo biyo ay shahwo ay ka imaada asagana soonkiisa ma jabaaya marka walaalayaal intaas waa inta soonkaan jibinaynin inta kaloo soonka jibinaysan kulley iyadana waa soo qulaasaynay ilaahay subxaanahu watacaala soonka fadligiisa iyo khayrkiisa hana siiya fadli fara badan ayaa kusoo aroray ilaa shaka nabi sal alayhi wasalam axaadiis fara badan uga hadlay nabi sal alayhi wasalam axaadiistiisa faraha badan iyo xadiis qudsi kusoo aroray badan yihiin walaalayaal waxa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankan waa nooga cadday marka idaa jaa ramadaan hadduu soo gala oo ramadaan ba la gaara futixat abaabu ljanna albaabaha jannada waa la balaqayaa idaa daqala shahru ramadaan futixat abaabu samaa albaabaha samada waa la balaqa walaalayaal marka qofka sooma naftiisa urka iyo shirka afkiisa kasoo baxaya min riixil miska buu lamid ilahay afkiisa marka walaalayaal marka fadligan iyo khayrkan aan ku dadaalna masaajidda ay xiran yihiinna dadka waxaan ugu baaqayaa cibaadada ilaahay marka la caabudayo iyo ilaahay marka la barinayo masaajidka shardi maaha meel walba meel alla meesha ay kugu qabato ilaahay gaada waa ku tuugi kartaa weliba khaasatan waxaan fartiin iyo baaq u dirayaa oo meeshaan fartiin kama dambayn aan ku gabaynaan u dirayaa dhalinyarta gabdhaha iyo wiilasha soonkan soonkiisa in la gaari doono lama ogo soonkan soonkiisa in la gaari doono lama ogo talow soonkan ma soonkii kugu dambeeya lama yaqaana aan ka faa'iidaysana habeenkii 5 saac iyo 6 saac markii la gaaro dadka ay hurdaan soo kaco quraan akhriso oo ku tuko quraanka ilaahay ku tuko kitaabka ilaahay ku tuko oo qiyaam leeyl imaaw ilaahay gaada bari inuu ilaahay ku dambi dhaafa habeenkii quraan badan lagu tukado maalinkiina macnaha quraan la akhriyo adkaarta iyo dhikrigana alla badiyo maxaa yeelay maanta inay maalin kugu dambeysay laga yaabaa soonkan ugu dambeeyay noqdo laga yaabaa war dhalinyarey war taraawixiga iyo qiyaam leelka laga tagin dhalinyarnimada iyo shahwada iyo macaanka iyo adduunkan aas idin sirini aal iska ilaaliya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh